السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalaha Soomaaliyeed meel walba aad joogtaan caawa halkan waxaan dhanbaal qaali ah ka soo go'ay qalbi muwaadin Soomaaliyeed uga diraya ciidamada qalabka sida ahna xooga dalka Soomaaliyeed iyo xukuumadda federaalka ah intuba. marka hore haddaan ku hormaro ciidamada qalabka sida walaalayaal waxaad tihiin runtii udub dhexaadka uu ku taagan yahay amniga malaayiinta ruux ee Soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulkan la yiraahdo Soomaaliya amnigiisii Allah soo celiyay. waxaad bulshada Soomaaliyeed dhexdooda waxaad ku leedihiin wazan culays ayaad ku leedihiin aan cidna inkiri karin. culayska aad ku leedihiin runtii bulshadan iyo ammaankooda iyo horumarkooda iyo dhowridoodii ilaalintooda runtii waa wax iska cad oo yar iyo weyn rag iyo dumar culimo iyo caamo madax iyo shacab ay ogsoon yihiin oo ay qirayaan. waxaad qaadeen ciidamada qalabka sidow ammaano runtii oo aad dhabar ka saarateen ay diiday khalaa'iqdii ugu weyneyd khalaa'iqda ilaahay. toddobada samo toddobada dhul iyo buurihii ay diideen ayaad dhabarka u ridateen. waana in aad dhowrtaan amniga malaayiintan qaraabadiina ah ku nool dhulkan Soomaaliya. waxaad qoriga u sidataan, waxaad qoraxda u taagan tihiin, waxaad u oomaysaan, aad u gaajoonaysaan ma aha calooshiina, ma aha qabiilkiina, ma aha beeshiina, ma aha gobol yar, ma aha, bal waa ilaahay dartii, waa shay cibaado ah, waa xil idin weydiin doono, waa in ka badan runtii 10 milyan oo muslimiin ah oo wada ah waalidiintiin, walaalihiin, macallimiintiini, dhakhaatiirtiini, ardaydiini, maxaa yiraahdaa ciyaalkiini, wiilal iyo gabdho. waad ogsoon tihiin la'aantiin in aanan marnaba wadankan aanan lagu noolaanaynin, in aanan la cibaadaysanaynin, dhulkan inaan lagu cibaadaysanaynin, in aanan wax lagu baranaynin, in aanan lagu shaqaysanaynin, lagu ganacsanaynin, lagu gam'aynin, nabadna aanan lagu soo kacaynin. waxaad ogaataan dhididkiinu waa cibaado, dhididkiinu waa qaali, istaagiinu waa cibaado, waa qaali, soo jeedkiinu waa cibaado, waa qaali, hadalkiina af iyo adin waxaad qabanaysaan waa cibaado, waa qaali. cibaadadana runtii lama siisto adduun iyo xaabo yar lama siisto. heshiis ayaad gasheen, lama eedan gelin xukuumad, bal waxaad la gasheen Allah subxaanahu wa tacaala haydinka dhaadhacdo taa. ilaahay baad la gasheen, ammaanada waxa idin dhiibay waa ilaah, waxaad dhaar u marteen waa ilaahay hortii inaad ilaalinaysaan ammaanada, inaad ilaalinaysaan qaranka, hawshiina aad oga soo baxaysaan iyo ballantiina sidii la rabay dhaar baad marteen. rasuulku wuxuu leeyahy salى اllahu alayhi wasalam in allaha saa'ilun kula raacin cama istarcaah axafida dalika am dayac. ilaahay wuxuu weydiinayaa mas-uul walba wixii uu u dhiibay ee uu mas-uulka ka ahaa inuu dayacay iyo inuu ka soo baxay. hawsha aad haysaan ee ah aad u taagan tihiin difaaca qarankiina, difaaca dhulkiina, ilaalinta ammaanka ehelkiina aad u taagan tihiin ciyaar maaha, raqiis maaha, ma aha waxaaba la siisto, ma aha, bal waa wax ilaahay jannaad looga raadiyo. wax quud la siista ma aha, shilimo yar, xaabo yar oo maalin soo dhici waayey laakiin iman doona in loo daaya ma aha. waad ka sharaf weyn tihiin, waad ka cizi weyn tihiin in aad xilkaas aad haysaan ilaahay uu idinku ilaalinayo, hadhowna lidin weydiin doono in aad uga tagtaan oo aad u daysaan oo aad u dayacdaan daraahima macduuda, xaabo yar 2 shilin inaad u daysaan waad ka weyn tihiin.
cizigeena iyo sharafkeena ilaahay ha dhowro, ilaahay ha ilaaliyo. waxa waaye qofka insaanka ah xilkan si uu u guto, waajibkiisa u guto, hadafkiisi uu gaaro, isaga ayaa wax hura. wuxuu u huraa naftiisa, maalkiisa, xoolihiisa ayuu u huraa. ina keena xooga dalka Soomaaliyeed inoo keena Muscab ibn Umayr, saxaabiga jaliilka ah, safiirkii u horeeyay oo islaam ah, wajigiisa laga dhaashan jiray intaanu ma aragtay islaamka soo gelin. taajir ayuu ahaa, carafta barfuunkiisa kilomitir gadaashi ayaa laga urin jiray. laakiin noloshii wuu diiday. xoolihiisii oo dhan wuxuu ku bixiyey oo uu uga dhaxbaxay si uu u ilaaliyo qarankiisa, u ilaaliyo maslaxa, uga shaqeeyo maslaxadda ummadiisa, in uu rasuulka raaco oo uu muslimo oo uu islaamo. ninka gaajuu ku noolaa, dagaalkii Uxud iyo Beder ayuu galay oo uu difaacayay isagoo gaajaysan, dhagax ku xiranaya calooshiisa sida saxaabada kale. maalinkii uu dhimanayey wixiisii o dhan wuu bixiyey. maalinkuu dhimanayeyna waxaa la waayey dhar maro lagu asturaa la waayey. saxaabadii baa rasuulka ku dhahaya ridwaanullahi calayhim, ku dhahaya maro yar ayuu qabaa, haddii hor la saaro lugihiyaa qaawan, haddii lugaha la saaro madaxii ayaa qaawan, maxaan samaynaa? u asturuu yiri madaxa, lugahana caws baa laga saaray. xoolihiisii oo dhan, waktigiisii oo dhan wuxuu u huray waa maxay? waa liiclaa'i kalimati illaah. hana u malaynin kelimada ilaahay laa ilaaha ila allahu af looga dhawaaqa keliya inay tahay, bal ficil baa la rabaa. qoraxda aad taagan tihiin waa cibaado, soo jeedkiina waa cibaado, gaajadiina oonkiina aad taagan tihiin, furunta aad ilaalinaysaan, ya maslaxadda dadkiina, dhulkiina aad dhowraysaan, waa cibaado. waa cibaado. maxaa wacay la-aanteed lama tukanayo, cibaado lama qabanayo, lama noolaanayo. dhulkaa fasahaadaya. ilaahayna wuxuu leeyahay walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha. ha fasahaadinina dhulka, ilaahay wuu islaaxiyey. islaaxi baad ku ilaalinaysaan. niyadiina ilaahay u wanaajiya, niyadiina ilaahay ku xira, camalkiina ikhlaas ka yeela. hawsha aad haysaan hawl weyn weeyaan. waad garanaysaan sanadii 5aad ee hijrada mishahaarkii ayaa saxaabada ka daahay. waxaan rabaa luqadaas hore in aan u bedelo luqad casri ah. waxaa ka daahay mishahaarkoodii, bimacnaa way gaajoodeen. dhufaysaa lagu jiraa, gaaladiio 10 kuna waa kuwa, dadku waa yar yahay, dhufays baa la qodanayaa. dhufayskii sidii loo qodayay waa la gaajooday, accountigii ma soo dhicin, mishahaaradii weli lama helin, wuu soo daahay. saxaabadii waa bashar, way adkaysan waayeen. qaar baa weliba dhagax ku xirtay caloosha, adkaysigii waa adkaysan waayeen. uurkii baa isku dhex dhacay, way istaagi waayeen. qaar baa usoo gurguurtay xabiibka sala allahu calayhi wasalam oo u imanaya oo dhahaya rasuul allow gaajana haysa, dhagax baa caloosha noogu xiran. qaar maray ku xirteen. xabiibkaa yihi sala allahu calayhi wasalam idin lamid baan ahay. intuu u feedo ayuu tusayaa calooshiisii, dhagax ama labaa ku xiran sala allahu calayhi wasalam. dadka waa sidaa, daa'iman iyagaa waxooda soo qaadan jiray si ay hawshooda iyo cibaadadooda ay u gutaan. cibaadaad ku jirtaan runtii, ilaahay ha idinla garab galo, sabirna allah idinku irsaaqo. runtii xaq baad u leedihiin in laydin siiyo mishahaarkiina, xaq baad u leedihiin reerihiini laydin dhowro, reerihiini laydin biilo, heshiiskii aad dowladda la gasheen runtii, iyo qof walba mishahaarkiisii in uu waktigii la rabay uu yimaado waa wax waajib ah. waxaan halkan dhambaalka labaad aan uga dirayaa waa xukuumadda federaalka ah. runtii ilaahay wuxuu leeyahay kitaabkiisa ku leeyahay sii qof walba xaqiisa sii. waxuu kaloo leeyahay walaa tabkhasu الnaasa ashyaaءahum, dadka ha ka dhimina xaqooda, sii xaqooda sii. waa ogahay runtii inaan xaqooda la inkiraynin sida madaxdu ay sheegeen oo ay noo cadeeyeen, laakiin xaqooda in loo dedejiyo, in intan runtii laga daahiyana gardarro ayay ahayd. laakiin gefka iyo khaladka wuu dhacaa. waxaan dowladda ka codsanayaa runtii xukuumadda federaalka ah, ciidamada in la siiyo mudnaanta koowaad in la siiyo, mishahaarkoodana in uu dhaco bisha oo aanan dhammaanin in ay helaan mushahaarkooda.
in weliba ziyaada xatii looga dhigi karaayo runtii in looga dhiga waxaa aad ii soo jiitay oo aan rabaa halkan inaan ka caddeeyo wiil soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo aan la sheekaystay intuu islaamay ayaa wuxuu yidhi waxaan ahay muwaadin shaqaale ayaan ahay xukuumadda federaalka ah $700 aan qaataa waxaan raalli ku ahay oo aad iga gaarsiisaa buu yidhi haddii aad la kulantid madaxda qaranka waxaad iga gaarsiisaa waxaan raalli ku ahay $100 in liiga gooyo lixlaysiiyo loogu daro ciidamada maxaa dhacaaniro loogu darayaa wuxuu yidhi ciidamada culayskooda waa naga weyn yahay way naga culus yihiin wadankana culays ayay ku leeyihiin nololna ma jirayso haddaan dadkaasi ma aragtaaye la siinin xaqooda waa runtii aad baan runtii ugu garaabay waxay ila tahay dowladdu inaanay moogeen wasanka iyo qiimiga ay leeyihiin culayska ay ciidamadu ku leeyihiin xooga maxaa yeelay iyagaanan joogaynin haddii ciidamadaasi ma aragtaaye aanay jirin laakiin xukuumadda ma mooga runtii waxaan filayaa in ay hawshoodiina ay ku jiraan laakiin waxaan ka codsanayaa in ay dedejiyaan khaladkana mar labaad uusan dhicin ciidamadana mudnaanta koowaad la siiyo waxaan kaloo halkan aan ka codsanayaa waxaa soo dhow bisha ramadaan ayaa soo dhow bisha ramadaan waxaan ka codsanayaa xukuumadda federaalka ah waxaan kaloo ka codsanayaa ganacsatada meel walboo ay joogto in ciidamada aad iyo aad looga farxiyo ciidamada noocyadooda kala duwan xaasaskooda iyo ciyaalkooda bisha ramadaan in ay noqoto runtii dadka ugu farxadda badan in laga dhigo dowladduna inaanay ka gaabinin xiriirka ay la leedahay ciidamada ma aha kuwa magaalada keliya jooga bal kuwa furinta jooga in daa'iman laga warqabo in meeshooda loogu tago in niyadda loo dhiso waxaan ilaahay ka baryayaa xaalka ummadda soomaaliyeed inuu hagaajiyo qof walba xilkii u qaadayna ilaahay inuu la garab galo aad iyo aad baan idiin salaamayaa ciidamada xoogga soomaaliyeed waajibkiina guta ilaahay dartiina u guta aad baan idin jeclahay. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.